dhanay deegaankii odayaasha lahaa waxaan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol mahad bini aadan loo mahadnaqo tii ugu qaalisanayd. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waa niman dhallinyaroon u ducaynay cidhibtooda allah barakeeyo madaxdooda iyo mijahoodaba aad iyo aadna waa mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi. gudoomiye Suldaan Axmed Cismaan Caddagude ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ku guuleysteen in la soo dejiyay jabhadii Buurta Gacan Libaax oo maalmihii ugu dambeysay wada hadal ay kula jireen. waxaanu sheegay in qaybtii koobaad maanta si rasmi ah loogu wareejinayo Mujaahid Axmed Ilka Case si ay u noqdaan dibooga cusub ee loo tababaraya ciidanka qaranka Soomaaliland ee tababarku uga furmi doono xerada Darweyne. Suldaan Axmed Cismaan Caddagude oo faahfaahinaya kulankaasi sidoo kale jabhadda hubaysan iyo kulamadii ugu dambeeyay la qaateen iyo safgaradka laga gaadhay ayaa waxa uu yidhi sidan: rabbil caalamiin waa maalin barakaysan oo khayr badan. 17 bishii sagaalaad 16 bishii sagaalaad 2023 alxamdulilah waa maalin hawlihii aynu joognay Buurta Gacan Libaax qaybtii koowaad dhallinyaradan waxaynu ku wareejin doonaa Axmed Ilka Case isla markaana waxay ka xaadiri doonaan xerada Badar Wanaag dugsiga tababarka Badar Wanaag waa qaybtii ugu horeysay dafcaddii ugu horeysay. hawluhuna biidni illaahi tacaala waxaan aad iyo aad u rajaynayaa si fiican oo qiimo badan bay noogu socdaan. qaybtii ugu horreysaa maanta naga baxday. dhammaan intayada kale ee halkan sii joogta odayaashii guddidii xildhibaanadii iyo dhammaanba waxgaradkii beesha korneylka waxaanu ku wareejinaynaa inuu gaadhsiiyo uu nagala wareego ragga dhallinyarada halkan taagan ayaad nagala wareegaysaa. waxaad gaadhsiinaysaa insha allahu dugsiga tababarka aan hore u soo sheegay ee Badar Wanaag. sidaasaa ku tawakalaysaan biidni illaahi tacaala. tiradiina waad nagala wareegaysaa insha allahu. hawluhuna saasay noogu socon doonaan. khayr badan baynu rajaynaynaa. waa maalin aad iyo aad u khayr badan. dhammaan raggii soo shaqeeyey iyo intii halkan soo gaadhsiisay iyo dhammaan dhallinyarada madaxda jabhadda Buurta Gacan Libaax iyo ummaddii nala soo shaqaysay dhanay deegaankii odayaasha lahaa waxaan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol mahad bini aadan loo mahadnaqo tii ugu qaalisanayd. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waa niman dhallinyaroon u ducaynay cidhibtooda allah barakeeyo madaxdooda iyo mijahoodaba aad iyo aadna waa mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. axmed hawsha hadda la wareegay.